Isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray wajiga labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka dilaaga ah ee COVID-19 waxaana goobta yimid qaybaha kala duwan ee bulshada una badan dad waayeel ah si ay u qaataan wajiga labaad ee tallaalka. Isuduwa ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka gobolka Bari Maxamed Maxamuud Cabdi ayaa daafurka wajiga labaad ee tallaalka COVID-19 kaga warbixiyay dadaalada wasaaradda caafimaadka ugu jirto sida ay bulshada u gaarsiin lahayd tallaalka cudurka COVID-19. maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bisha shanaad 2021 waxaa la bilaabayaa tallaalka qaybtiisii labaad ee doostuuga ahaa ee xanuunka safmarka ee COVID-19 wuxuuna soconayaa tiro maalmo ilaahay idankii 5 maalmood ah. tallaalkaas ee wasaaradda caafimaadka mar walba waxay ugu jirtaa dadaal dheer si ay gobolada oo dhan Puntland gaar ahaan gobolka Bari uga hirgeliso la tacaalida xanuunka ee khuseeya wacyigelinta baaritaanka la tacaalidiisa iyo bukaanka la tacaalidiisa iyo tallaalkaba. sidoo kale waxaa xusid mudan in tallaalka qaybtan haddii laga baxo qaybo dambe ay jiri doonaan oo dadka haleeli waaya tallaalka ay heli doonaan. waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa dadkii tallaalka horay u qaatay in maalmahaas loogu talagalay tallaalka qaybtiisa labaad ay qaybtooda labaad ay qaataan qof walbana uu la imaanayo kaarkiisii. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Abwaan ayaa si rasmi ah u daafuray tallaalka wuxuuna bulshada ugu baaqay in la qaato tallaalka si looga hortago cudurka dilaaga ah ee COVID-19. salaanka dib maanta waa farxad weyn waa daafurkii qaybtii labaad ee tallaalka cudurka COVID-19ka runtii waxaa loo baahan yahay waana sida hadda muuqatana dadkii badankood waa joogaan inta kale waxaan rajaynaynaa inay yimaadaan halkan maanta waxaan ku daafuraynaa qaybtii labaad waana in la yimaadayo tallaalka la qaataa tallaalkii waa inoo yaallaa qaybta koowaad laftigeeda qaybo kale oo la daafuri doonaa jira tallaal badan baa inoo yaal kii ruushka inoo yaal kii yurub baa inoo yaal kii jayneeska isaguna maanta imanayo aad u fara badan baa jira dadka waxaa la rabaa inay istalaalaan waa ogtiin cudurkan waa cudur dilaa ah waa cudur halis ku ah bulshada waa cudur haldoorkeennii dhameeyey gaar ahaan dadkii waaweynaa marka waxaa la rabaa in arrintan laga hortago nasiib darro waxa ah in Boosaaso ay 1200 qof kaliya iska talaashay waa wax aad looga xumaado way waxaan leenahay reer Boosaaso waa ogtihiin hadda ramadaantii iyo intii ka horeysay intii qof ayna ka dhintay oo cudurkan dilay ma wax qarsoodiya waad ogtihiin Soomaaliya oo dhan oo caalamka ka warhaysaan milyuumaad buu marayaa dadka dhimashada ah iyo dadka uu dhibta u geystay marka waxaa la rabaa in tallaalka la qaato qof kasta oo kaarkiisa haysta kaarkiisa la yimaado oo tallaalka qaata qaybta labaad kan koowaadna wixii ka tagay dib baa loo daafurayaa isagana hal la yimaado hal la qaato waana inoo furan yahay insha Allah waana in caafimaadka laga taxadaro diinteena ayna faraysa feerasta qofka waxa uu horeeyo waa inuu caafimaadkiisa ka taxadaro waana in cudurkan aad loo taxadaro weeye dadkuna wali waa jira ma dhammaan wali waa jira taxadarkii iyo afxirkii iyo kala fogaanshihii iyo in la taxadaro weeye waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isuduwaha iyo ku-xigeenkiisa iyo shaqaalaha caafimaadka 5 goobood baa la iska talaali doonaa Boosaaso degmooyinka waa jira. Maxamuud Yuusuf Caamir warbaahinta dowladda Puntland magaalada Boosaaso.